kulan waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo war cusub ka soo saaray dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iyo qaraxii shalay ay shacabka Soomaaliyeed ku gumaadeen iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo dhiiggiisa ugu deeqay dadka ku waxyeeloobay qaraxii Soobe shalay isagoo baaq culusna u diray bulshada Soomaaliyeed. haddaba baaqaasi muxuu yahay wararkeena ayaad kaga bogan doontaan. qodobada kale ee warkeenana waxaa ka mid ah shir degdeg ah oo ay yeesheen golaha wasiirada oo laga soo saaray go'aano 9 qodob ka kooban. haddaba qodobadaasi maxay yihiin wararkeena ayaad kaga bogan doontaan. qodobadaasi iyo kuwa kaloo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan. aynu ku bilowno wararkeena. madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si qoto dheer uga hadlay waxa ay yihiin kooxda argagixisada ee dagaalka kula jirta dadka Soomaaliyeed ee xasuuqa joogtada ah ku haya shacabka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsanin. Sheekh Shariif ayaa ku taliyay in la ballaariyo dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada isla markaana furimo dagaal looga furo meel kasta oo ay joogaan si degdeg ah loogu soo afjaro dhibaatooyinka ay ka geysanayaan dhammaan dalka qaybaha kala duwan. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayuu ugu baaqay inay la imaato qorshe cad oo looga jawaabi karo xaaladaha degdega ah. wuxuu dowladda ku adkeeyay inay tallaabooyin degdeg ah kooxda argagixisada uga qaadaan furimaha dagaalka. dowlad goboleedyada ayuu ka codsaday kala shaqeeyaan dagaalka ay ku soo afjarayaan kooxda argagixisada. waxaa fiican in culayska la wada qaado meelahay joogaan oo dhanna dagaal looga furo. hadda waxaa muuqata fursad weyn oo looga xoroobi karo kooxda argagixisada ayuu yidhi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waxa uu sheegay in kooxdu ay cadaadis ugala jeedo qaraxyadan iyo weerarada ay geysanayso isagoo ku baaqay inaan la joojin oo dagaalka laga guul keeno. arrintan ujeedkeedu waa in dagaalka lagu hakiyo. waxaan soo jeedinaynaa inaan loo jilcin yaan dagaalka laga jilcin ayuu yidhi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. madaxweynihii hore ayaa u kala saaray kooxda argagixisada ah 2 group isagoo qayb ka mid ah fariin u diray. argagixisadu waxay u qaybsan yihiin 2 qaybood oo kala ah dad isku dayaya inay fikir qaldan ummadda ku hogaamiyaan oo dhiigga islaamka ay banaystaan iyo kuwa siyaabo kala duwan uga qayb qaata ayuu yidhi. kuwa aan sida buuxda u caddaysanin inay dhiigga dadka daadiyaan ayuu Sheekh Shariif ugu baaqay inay dariiqa ka soo laabtaan isagoo sheegay in dhalinyaro aan weligoodba wax baranin oo kooxdu ay qaladay oo duruufihii haystay ay uga faa'iidaysatay. war marka hore diinta barta oo u soo laabta dadkiina Soomaaliyeed iyo dowladdiina. ugu yaraan waxaad ka qayb qaadan kartaa inaad joojiso dhiigga. Sheekh Shariif ayaa sheegay inay qarniyo badan ka hor soo jirtay khawaarijtu yaan loo kala hadhin maanta. fursad looga guulaysan karo ayaa jirta dadka mujrimiinta ah. waxaan alle ka baryayaa inuu naga dulqaado kooxdan argagixisada. joogitaankooda caqabad ka weyn oo maanta haysata dadka Soomaaliyeed ma jirto ayuu yidhi Sheekh Shariif. haatanna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa dhiig u shubay dadka qaba dhaawacyada wuxuuna mar kale bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in loo gurmado dadka mudan ee wajahaya duruufaha caafimaad iyo kuwa nololeed ee xaaladaha jira ka dhashay. madaxweynaha ayaa baaqiisii xalay ee ku aadanaa in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay u istaagaan samata bixinta dadkooda ku dhibaatoobay qaraxyadii argagixisada ee shalay toole ka dhacay isgoyska Soobe. sidoo kale madaxweynaha ayaa soo codsaday in loo midoobo sidii ay gurmad iyo daryeel u heli lahaayeen qoysaska ubadka iyo waalidiintii ay ka tageen muwaadiniinta ku shahiiday qaraxii murugada lahaa. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyey sida ay qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed ay dhiigooda ugu deeqeen dadkooda biyaha iyo cuntada dharkooda iyo agabyada kale ee muhiimka ay ula gaadheen dhaawacyada. madaxweynaha ayaa caawa dhankiisa ugu deeqay dhiig si uu u dhiirigeliyo ololaha gurmadka qaran. weli waxaa goobta ka socda gurmad ay wadaan shaqaalaha dowladda hoose iyo dhalinyaro kale. waxaana maqan in ka badan 10 qof oo weli nolol iyo geeri aan lagu haynin. maanta tiradii ugu badnayd oo dhalinyaro ah ayaa tagtay isbitaalka Muqdisho iyaga oo ku deeqaya dhiigooda.
si loogu badbaadiyo dhaawacyada dhiig baxay. Inta badan waddada weyn ee Maka al-Mukarrama ayaa xidhan weli, maadaama isgoyska Soobe uu ka socdo gurmadka loo fidinayo dadka loo malaynayo inay burburka dhismaha ku hoos jiraan. Madaxda ayaa aad u isticmaalaysay waddadaas. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa caawa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada oo degdeg ah oo looga hadlayo gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii 29 Oktoobar ka dhacay Soobe ee magaalada Muqdisho ka geysteen kooxda argagixisada. Shirka oo ay ka qayb galeen taliyayaasha ciidamada ayaa waxaa ka soo baxay 9 qodob. Kow, dowladda Soomaaliya waxay lacag $1 milyan ah ku deeqday sanduuqa gurmadka wax looga qabanayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxyada wuxuushnimada ahaa ee argagixisada khawaarijta ku beegsadeen dad shacab oo aan waxba galabsanin. 2, dowladda Soomaaliya waxay kafaalo qaadaysaa daweynta iyo daryeelka dadka ku dhaawacmay qaraxyadii shalay. 3, waxaa kaloo golahu isku raacay in la kafaalo qaado waxbarashada carruurta ay ka tageen shuhaadadii ku naf weyday qaraxii shalay, iyada oo laga ambaqaadayo ballanqaadkii uu jeediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu booqday goobta qaraxu ka dhacay. 4, xukuumaddu waxa ay faraysaa wasaaradda waxbarashada iyo hiddaha in muddo 3 maalmood ah la fasaxo goobaha waxbarashada si ay uga helaan ardayda sii wadista howlaha gurmadka socda ee loogu gargaarayo dhibanayaasha weeraradii dhacay. 5, waxaa dhammaan wasaaradda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda la farayaa inay si buuxda uga qayb qaataan gurmadka socda. 6, waxaa dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku dhawaaqaysaa qaadista tallaabooyin cadcad oo amniga lagu sugayo, lana samaynayo isbeddelo degdeg ah oo la jaanqaadi kara xaaladda dalka ka jirta. 7, waxa uu golaha wasiiradu si xushmad leh uu shacabka Soomaaliyeed uga codsanayaa inay yeeshaan feejignaan dheeri ah, samir, dulqaad iyo adkaysi inta lagu guda jiro howlgallada lagu cidhibtirayo cadowga khawaarijta ah oo dhammaan goobihii ay isku fara saareen ciidamada qaranka iyo shacabka taageeraya looga adkaaday. Sidaa darteedna ay iyaga oo nafla caarida ay isku dayayaan inay beegsadaan shacabka Soomaaliyeed. 8, xukuumadda federaalk ee Soomaaliya waxay mar kale ballan qaadaysaa in khawaarijta dalka laga cidhibtiro, isla markaana ay ciidamada qalabka sida sii wadi doonaan gulufka guulaha badan laga gaadhay kaas oo khawaarijta lagu gaadhsiiyey khasaare ballaadhan. 9, waxaa kaloo golaha wasiiradu isku afgartay in dib loo yegleelo bangiga kaydka ee dhiigga ee heer qaran si sare loogu qaado adeega caafimaad ee shacabka Soomaaliyeed. Golahu waxa uu mar kale tacsiyo u dirayaa qoysaska, ehelada iyo shacabka Soomaaliyeed ee ay ka baxeen shuhaadadii shalay ku naf waayey weeraradii wuxuushnimada ahaa ee nafla caaridka khawaarijtu ku qaadeen goobaha rayidka ah, iyadoo dhinaca kale mahadcelin loo jeediyey qaybaha kala duwan ee bulshada ee isku xilqaamay gurmadka qaraxyadii dhacay. Shirkan aan caadiga ahayn ayaa golahu waxa kale uu ka dhageystay warbixino ay soo jeediyeen ciidamada xoogga dalka, booliiska, nabad sugidda iyo guddiga gaarka ah ee golaha wasiirada ee ra'iisul wasaaruhu u magacaabay gurmadka qaraxii dhacay shalay. Madaxda laamaha amniga iyo hay-adaha maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay, sidaas iyo nabadgelyo.